السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا كحرن جنالكينا جنالك حكمة تيوب اي يوتيوب كسور هذا مقال عصب مقالكينا maanta maaha muuqaalaan kaga hadlayno muuqaaladii caadada ahayd ee aad uga barateen channelkeena sida qisooyinkii dhacdooyinkii iyo weliba xikmadihii qoraalka ahayd ee xagan kusoo gudbin jiray laakiin waa muuqaal ka duwan run ahaantii aadna muhiim u ah oo rajayn lahaa inaad dhameysatid muuqaalka dhameystiran muuqaalkeena maanta saad ciwaankaba ka arkaysa waxa uu ku saabsan yahay sideed shay oo haddii aad joogtayso bedelaya noloshaada oo dhameystiran ilaahay waafajintiisa kadib waxaa hubaal ah in sideedan shay haddii aad ku dadaasho noloshaada oo dhan isbedelayso weliba iskuna bedelayso sida ugu fiican insha Allah intaynan muuqaalka u gudagelin fadlan haddaad channelka ku cusub tahay subscribe saar videogana like saar aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tahay commentina soo qor sidaada u qurux badan aan u gudagalno muuqaalkeena maanta waxaan usoo kala horreysiinaynaa insha Allah siday u kala muhiimsan yihiin kow waxaan soo qaatay akhrinta buugaagta sababtan usoo qaatayna waa caalamka dhan si aad u fahantid una socotid xadaaradii hore iyo taariikhihii hore iyo weliba waxa hadda taagan kow muhiimadu waa akhris waayo saad arkaysid ba haddaad akhrin karin waxba meel lama isticmaali kartid xitaa haddaadan waxba akhrin karin maadan furteenba muuqaalkan sababtoo amaba garanaysid ba wuxuu ka sheekeynayo sidaa darteed waxaa la sheegaa tusaalayaasha ugu waaweyn ee muhiimadu tahay inaad wax akhrisatid ninka loo yaqaano Jeff Bezos waagiisii hore intuuna maalqabeenka noqon waxa uu iibin jiray buugaag gabadha kale ee qortay buugga Harry Potter oo la iibsaday run ahaantii buuggeeda wax ka badan 500 oo milyan oo jeer waa qofkii koowaad ama qoraagii koowaad ee taariikhda noqda bilyaneerad iyaduna waxa ay bilyaneerad ka noqotay qorida buugaagta xagga Bill Gates la sheego inuu ka dambeeyay ama ay ka dambeysay horumarkiisa iyo hantida ballaaran oo uu xaqiijiyay akhrinta buugaagtu oo mar walba la arko iyagoo wax akhrinaya keligii maaha qof kasta oo dunida raad ku leh akhriska si fiican ayuu ugu dadaalaa marka insha Allah adoo xataa akhrinayn wax badan laakiin maalintii ugu yaraan waa inaad waxuun akhrisaa marka laga yimaado quraanka oo muhiim tahay maahe qasab tahay quraanku laakiin waxyaabaha kale ee akhriska ayaan ka hadlaynaa oo muhiim weeyaan inaad wax akhrisatid laakiin se quraanku waa waajib nabiguna xadiis waxa uu ku yiri ma garanayo dambi ka badan qof intuu aayad bartay haddana ilaawa marka waa inaad iska ilmaysaa haddii quraankaagu ama kitaabkaagu boor yeesho 3 cisho isku xigta aadan quraan akhrin dhibaato inteeda laag weyn talabaad ee haddii aad samayso insha Allah noloshaadu isbedelaysa waa inaad baratid xirfado cusub xirfado kuwa gacanta ah ama kuwa internetka ku jira sida hagaajinta taleefanada mobilada xirfadadu noocay ahaataba oo xirfadu aad ay u muhiim tahay ninkan Chinese ka arkaysid ma garanayo magaciisa laakiin magaciisa xagan aan kugu soo qorayaa waa nin waxa uu sameyn jiray robotyada xitaa isagoon waxba akhrin jirin robotyada ayuu sameyn jiray kadibna waxa uu isku bedelay professor jaamacadeed oo dadka bara jaamacadaha dhigta 12 sano wax soo baranayay si loo sameeyo robotyada iyo sida ay u shaqeeyaan marka xirfadu waxa ay ka muhiimsan tahay wax walba oo xirfad hadaad leedahay meelna kuma soo celinayso xirfadtay ahaataba mid maskaxda ku qabso kuna dadaal horumarina laakiin intaad baran lahayd xirfad aadan jeclayn waxa ka fiican inaad baratid xirfad aad jeceshahay waayo waxaad jeceshahay baad sii joogteen kartaa tasaadaxaad waa inaad iskaga baxdid ama aad ka dheeraatid waxay carabtu tiraahdaa mantiqad raaxa ama comfort zone af English ahaan comfort zone waa Soomaali ahaan hadaan u macneeyo yani tusaale ahaan haddaad aroortii soo kacdid quraacatid iskuul haddaad dhigatid iskuul tagtid haddaad shaqo leedahay shaqadaada tagtid haddaad shaqo haynood bilaa camal tahay inaad bannaanka u baxdid meelaha aad maqaaxiyaha soo fadhiisatid soo noqotid qadaysid seexatid baxdid soo noqotid waxaasi waxba kuma soo kordhinayso noloshaada cimrigaagana waa ay khasaarinaysaa Bill Gates hadallada laga hayo waxa kamid ah in uu yiri waagan ku jiray 20meeyada weligay hal cisho ma nasan macnaha waxaan ku dadaalayay horumarkayga iyo waliba mustaqbalkayga walaal Umar inshaar video aan ka daawanay waxa uu yiri nin Arab ah oo iga weyn ayaa waxa uu wala taliyay weligaa ka fikirin intaadan 40 ka gaarin wax nasasho ah macnaha nasanin ilaa intaad da'da 40 ka gaadhisid sidaas la mid ah inta 20 ka haysatid waa cumri dahabiya waa cumri dahab runtii waa hanti ilaahay ku siiyay caafimaad bad qabtaa 20 jir baad tahay ama 20 wad ka yar tahay ama 20 meeyad ku dhex jirtaa 30 kaad ku dhex jirtaa ka soo qaad waa fursad
waa fursad wallaahida fursad weyn in loo baahan yahay aan ka faa'iideysano. Marka inay noloshaada routine ahaato maalintii oo dhanna waxaad samayn jirtay beri ku soo celisid waa doqonnimo. Marka waa inaad isku dayid ugu yaraan maalin kastaba inaad hal shay kororsatid, wax yarna Allah ka dhigay. Ta afaraad, inaad isboortiga ku dadaashid. Isboortiga markaa ku dadaashid wax walba caafimaad baad dareemaysaa, firfircooni baad dareemaysaa, jidhkaagu nashaad, wax walba way kuu fududaanayaan. Waayo qof firfircoon baa tahay, waanad fudfududahay. Xilliyada ugu fiican ee isboortiga la sameeyana waa inaad aroortii salaad subax markaa salaada tukatid aad in yar isboortiysid. Hadday orod tahay, hadday ugu yaraan xataa haddaad socsocon kartid aad socsocotid, laakiin ugu yaraan aad waxuun samaysid oo isboorti ka mid ah. Muhiimaddu waa inaad joogtaysid. Hal cisho ood wax badan samaysid aad toddobaad ka go'naatid waxaa ka fiican hal cisho ood hal daqiiqo isboorti samaysid sidaana ku joogtaysid toddobaad dhan. Marka isboortigu waa muhiim. Arrinta afraad ee kugula talinaya inaad joogtayso waa isboortiga. Waxaan ku yidhi 1 waa akhrinta buugaagta, 2 waa barashada xirfad cusub, 3 waa inaad iskaga tagtid meesha comfort zone ama aad routinkaaga bedeshid adigoo waxyaabo cusub sameynaya. Noloshaada routinku say ahayd si ka duwan u bedeshid. Nasashada iyo waxaasna iska iloodid intaad yar tahay. Ha nasan inta aad yar tahay. Ta afaraad waa inaad isboortiga joogtaysid. Arrinka shanaad ayaan kugula talinaya inaad joogtaysid ama aad caadi ka dhigatid waa dad wanaagsan inaad la saaxiibtid. Mahmaah carabiya ayaa ahayd as-saaxibu saaxib. Macnaha saaxiibku waa mid ku soo jiida. Hadduu saaxiibku wanaagsan yahay waxa uu kuu soo jiidayaa wanaagga, laakiin saaxiibku hadduu xun yahay waxa uu kuu jiidayaa xumaanta. As-saaxibu saaxib macnaheedu saaxiibku waa ka ku soo jiida ama ku jiita weyn ee wax jiita. Marka inaad la saaxiibtid dad wanaagga ka hadlaya ama wax xun haddaad samaynaysidna kaa reebaya wanaaggana ku faraya, dadkaas inaad la saaxiibto ayaan kugula talin lahaa. Ninka loo yaqaano Cali Baba dadka 20 jira la talinaya waxa uu yidhi hadduuna saaxiibkaa ka hadlayn mashaariic cusub sidaad u qabsan lahaydeen, sidaad aad ganacsi u horumarin lahaydeen, sidaad xirfado badan u badan lahaydeen, sidaad jidhkiina u dhisi lahaydeen, saaxiibo saas kaala hadlaya ama waxyaabahaas kugu dhiirigelinaya haddaadan haysan isla markaaba bedel booli. Saaxiibku maaha ka kugu yeedhaya inaad xafladaha tagtiin, maaha ka kugu yeedhaya inaad gabadh cusub ama gabadh soo xirigelisiin nambarada ka qoratiin ama inaad caadooyinka xunxun samaysiin walciyaadu billaah. Waxyaabaha kugula talinaya kaas saaxiib lama dhihi karo. Saaxiibku waa ka xagga wanaagga kugu yeedha. Insha Allah saaxiib wanaagsan samayso. Shayga lixaad ee kugula talinayo waa cunnada caafimaadka qabta. Inkastoon dad faqiiriina u badannahay oo nolosheenu meel dhexaad iska tahay, laakiin tusaale yar aan ku siiyo. Haddaad haysatid $1 oo rabtid inaad iibsatid dukaanaad timid inaad wax ka iibsataa rabtaa, xaggaad ka iibsan lahayd Coke ama Coco waa inaad iibsataa biyo. Waayo Cocodu caafimaadka u daran tahay waana la ogyahay, biyuhuna caafimaadka u fiican yihiin. Meel kale u eegin anu faqiir baan ahay marka cunno fiican iyo cunno caafimaad waxa ma helayo waxa dhihin. Cookada xaggaad ka iibsan lahayd ka iibso maxaan ku dhahay biyaha. Xaggaad ka iibsan lahayd chocolateska ka iibso muus. Xaggaad ka iibsan lahayd nanaca ka iibso wax kale, liin ka iibso haddaad u baahan tahay. Adu muhiimaddu waa inaad cuntid cunto caafimaad qabta. Shayga toddobaad waa inaad maalin walba qorshe yeelatid, ajende aad yeelatid, meel aad ka duusho iyo meel uu hawshaada kusoo dhamaata aad yeelatid. Habeenkii markaad soo seexanaysid aad xisaabisaa kanaa kuu qabsoomay alxamdulillaah, kanaan kuu qabsoon ku laba celi, kanaa kuu qabsoomay alxamdulillaah, kanaana kuu qabsoomin dib ugu soo celi. Muhiimaddu waa inaad maalin kasta qorshe leedahay. Noloshaada waa inay update tahay. Maalin kasta wax cusub aad qabanaysid inuu jiro, cashar aad baratid, aad sport samaysid, aad mashaariic fushid. Adu maalin kasta waa inaad qorshe yeelato insha Allah. Ta ugu dambaysa insha Allah waxa weeyaan inaad dadka wanaagga la jeclaatid. See wanaagga ula jeclaadaa meel kaleba maaha. Adu waxaad naftaada la jeceshahay walaalkaa la jeclow. Ma jeclid in lagugu yeedho magac xun, ha ugu yeedhin qofka magac xun. Ma jeclid in wax lagaa sheego cidna waxba ha ka sheegin. Ma jeclid in wax lagaa xado cidna waxba ha ka xadin. Ma jeclid in lagu dulmiyo cidna ha dulminin. Ma jeclid in lagu caayo cidna ha caayin. Wax kale maaha. Waxaad naftaada aadan u ogolayn cid kalena ha u ogolaanin. Naftaada ka soo qaad qofka kale. Hadalka intaadan qofka ku dhihin naftaada ku tijaabi. Ma jeclaan lahayd in hadalka lagu dhaho may ka daa bas. Ma jeclin inuu muuqaalkan sii dheeraado. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa insha Allah muuqaalkan si walaalo badan uga faa'iidaan share gare
adiguna like saar muuqaalka, haddaad channelka ku cusub tahayna subscribe saar. Waad ku mahadsan tahay la joogaaga. Intaan ku kulmi doono muuqaalkan muuqaal la mid ah iyo weliba muuqaalka xiga, waxaa idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.